waa BBC oo idinkala hadlayso mawjadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga dhagaysan kartaa magaalooyinka qaar internetka ciwaankeena waa bbcsomali.com duhur wanaagsan akhyaartaabada naga xiriirtay idil ahaantiinba waxaan idin leeyahay maalin wacan wanaagsan anigu waxaan ahay Cato Share maanta waxa ila jooga qofka ugu caansan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya sidoo kale wuxuu aad u isticmaalaa aaladda TikTok-ka oo 2 isbuuc ayuu ku caanbaxay waxaana loo yaqaan macallin bisbaas waxaad naga daawanaysaan barta YouTube-ka ee wariye Cato Share fadlan hadii aad ku cusubtahay channel-kan subscribe like gambaleelka riix commentigana ka xasdin in macallin in ku soo dhawo barta YouTube-ka ee wariye Cato Share awalan aku dhawahay dhamaan wariye Catosh oo maanta cusubadiisa soo qayb galay oo waraysiga qaadayo oo ku maasutahay waan gartay in macallin asal ahaan xagee ayaad ka soo jeedaa marka laga hadlayo in Soomaalida nin walba gobol ayuu ka soo jeedaa ayuu ku faana in adiga gobolkee ayaad ku dhalatay oo aad ku faanaysa anigu waa la yaqaanay oo reer Jowhar ayaan ahay waan ku faana anigu waxaan ku dhashtay gobolka Burburta xaafadda Indhaceel marka dambe waxaan soo degay xaafadda Wardhiigle warta nabadda Wardhiigle goormee ayay kugu soo maaxatay in aad duubto TikTok-ka hawa 2 isbuuc ka hor aan duubay marka hal heeso oo aan arkay waa duubay waa iska dhigay aan leeleeyay marka in macallin inta badan marka uu qofka caan yahay ee muuqaaladiisa waxa soo qaatay in dad aad u fara badan oo YouTuber hadii ay ahaa lahayd ama hadii ay ahaa leh saxaafad in muuqaalada aad soo duubtay ma ku aragtay YouTuber kale oo aad soo dhiganayaan waa hadda qorto macallin bisbaas badan marka waa sameey waaye marka buute official qorto waan gartay in macallin marka laga imaado xaggaas iyo TikTok-ka in waxa sheegtay in aad barnaamijyo kale oo aad soo bandhigtay in barnaamijyada aad soo bandhigtay hal iyo labo ma naga xasuusi kartaa maadaama aad adiga tahay qof caan ah haddana talent leh oo inta badan baraha bulshada aad loogu yaqaano in ma noo soo bandhigi kartaa caswaldeen waaye barnaamijkaas riwaayadda aan soo dhignay buute janaal marka riwaayadaas aan soo dhignay caswaldeen wiilkayga telefoonka wacaya wiil kale oo saaxiibiina iska ag fadhiyo telefoon markaan ka wacaa markaas waxaa baxmar weynaan joogaa markaas waa soo raadinaa markaas soo raaday markii soo meesha joogo ayaa wiilka kale hooyadiisa soo wacaysa markii soo wacdo kaasaa allaha hooyadii soo wacday bax kii aan qabanaa marka baaxisha u gelina waraadaha caswaaldeena taasoo dadkaas ka fiican waan gartay in macallin bisbaas marka aad marayso in gudaha magaalada Muqdisho in goobaha la iskugu yimaado in maxad dareenta maadaama aad adigu caan tahay oo la og yahay Muqdisho gudaheeda qof caan ah marka uu marayo in taageero aad u fara badan oo haddana leeyahay in maxad dareenta والله أنا فرحان دريما دتك تاجرياش إذا سودوا ويا تفعنا وسودوا ويا حتى كم حناقي دتك بدنا وسودوا ويستا صور إلى قلب كده أنا صور أبانا أنا واسيا معلك تهيوني وصور نسي وأقول دتك حتى والسلامة سلويني ذارتا إلى وسقناك وانجرت إن فنانكي أيات تاجرتا إن فنانين عن أيا كسوغن إن جذا مجالات مقدسة عاصمة الدولة الصومالية أنا هالفنان هالتا سفع عن قيمة لا يحضر نور شيء مركا فنانين تكلنا هيقرأ على هذا مركا تالنت جيجا نك هالتا لبنتي سلام حيقرأ فقالنا هذا حبتك ساعته نك سيس قاعد وان قرت إن ضيح ما دامو أتاجرته إن ضيح ضل نور شيء وفنان عن isla markaana ay maslaxiyada magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ku soo bandhigay heese aad u macaan in heesta ugu dambeysay oo soo bandhigay oo aad adiga aad u jecleed mana xasuusi kartaa badana heesiis aniga ma hal hees halkaas hees oo koow qaada ugu horeysay ugu dambeysay inta kale waa iska jeclaa nin qof oo la jeclaa kar ma jiro in heesta magaceed in dayax inta badan waxa uu ku luuqaya heesa jecel ah oo inta badan uu ku amaanay hablaha in hees xabiibi xasuusto heesteeda oo qaadaya la jirta oo caashaqa ka tirma laha heestii kadeed miyaan dalbada miyaad taageerta heesas badana ninka horta qofka labintiisa lama diido
aniga taageerada officialka ahay oo si fiican ku taageerayo marka maadaama dayax dal nuurshe dadka ku caynaya xataa meel dhagaa u dhigin waan gartay inta aad dayax taageerayso in ma jirtaa kulan idin dhaxmaray maadaama aad adiga caan tahay oo haddana aad inta badan dayax aad u tahay taageero aad u sareeya okay dayax weli ma is arkin waxaa dhinaca facebooka iska aragnay waa heesaan qaaday oo soo dhigay markaas oo aana jilaayo oo soo dhigay waa ku maasan tahay taageernimadaada walaalkeyga waaye lanjanti waaye ninkaas salaan saara waan gartay in marka laga yimaado xagga iyo fanaaniinta in ma jirtaa wariye aad adiga taageerto oo aad jeceshaa ama wariyayaal oo aad codkooda xiiseyso in weli ma samaysay barnaamij aad jilaysid adiga oo war akhrinaya oo wariye matalaya ما تاس من جرت عطشر هذا كافي السنة فيسبوك وجور لقى ورسنا وكاسم كتاجر oo aniga aad ii taageertaa in macallin nin عطش لله بي بي سي u shaqeeyo ayaa jiro marka عطش yarahan waa la yaabanaano yar saaxiibkay tusii maanta baan fiiri marka faraan shat buluga wadatay marka si fiican lagu wareysana nin herjoor kubada aan ku wareysanay markaas waa la dhacday marka codkii islahaada marka isla fiiri codka soo qaaday catoshka weynka catoshada waa saag dhigay isku mid ay noqdeen waa tahay macallin bisbaas in soo dhawow ayaan ku leenahay in ugu dambeyntii asxaab aad u fara badan ayaa ka daawanaysa barta YouTube-ka ee wariye catoshare in asxaabta channelkaas ku xiran iyo kuwa hadda soo booqan doona maxaad leedahay waxaan leeyahay catoshare lagu soo yaaco iskaraabka loo saaro ambalka loo yeeriyo waa walaalkeena yaan laga faanin qabriyan sugaay waa tahay kaas waxa uu ahaa macallin bisbaas oo maanta aan la yeeshtay waraysi aad u xiiso badnaa waraysiga maanta waxa idiin soo daadihinayay idiina soo diyaariyay anigoo ah walaalkiin catoshare waxaana naga daawanaysaan YouTube channelka wariye catoshare fadlan iloowin subscribe like share gambaleelkana furo kaamiradu waxa naga saacidayay kaamiramanka laga daba dhalay oo magaalada Muqdisho aad u gilgilay waa Moha Lili aad u maasan yahay Moha intaan dib ku kulmi doono sidaas iyo isma khaldam